الرحيم. مدن مدحوينه كحجين مدح رقميديدا مدنياشا قولها الدولة محاكرة وان يرقي رئيسنا هي راليقا هذا أنا أقول دمان أنت هالكن شوفته احترامية مدحدا إذا ملا رقية هوين وحن نقول السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبين ومناسبة قيمة وين نوقف هذا هدينا هاي تذكرون الصومالي لاند لحدا سنرد هرتيد أنت يدي شوكتي أنت كده بيسد الشيبة وتاريخ قيمة وين نوقف هذا قاردنا أفريقيا هدينا نهاي دلكي أجور ريي النقطي عرضكي ومدها الصومالي ده تذكر الصومالي كواحد لا دلكي أجور ريي حرنمي سقاطة وإنه كور ريني دلكي لبعض شن معلومات وواحد تاريخ دعاني مسيحي كرين وأنا الشرف وين هذا عرض هنا مسؤولية يطلقات أي حبار سنتاي مسؤولية دا يدلقات كأنه حبار سنة هاي وأكيد نجا صوت دبالي دجالة دي سكية سومالي لاند إنه جو دبعتو إن بعدين نجارين هذا نمر كأنه كوسون نقولي دل كأنه هويو أينو ندي وحيد دان تهنا دان حقاد وحيد دان تهنا دان حقاد دل كأنه أينو دسنو أولاد مالس كدقنو وحيد تالي إنه باقية هنتي داير يا مات داير يا أقومتها أينو كوسو هوينو أو حقو قبلنا واتيلهي نقول بركي مركينا أرجوس يدبوا جيسن مركي محابيستي هل كان باقي كواهيد تلك الصوماليا أينان كأرجوسن ومركي أينو إنتينو هويني دور بلاد وبنايني جدكي أي دلكودا الصوماليا دبوا نقول لهاي وواحد شاركو يالو وواحد ضد الإسلام كيالو وضد كوراليه وحيالان هدي أي يجو حمان جيستين وحينو قوسنا إنينان إنكو أينان تيكو دقاقين إنكو أينو كحشون إنييل مروري مدنيال مالمهن وحيابا لسلدافية محل حقيلة تجي محل سمية وحى مدحوينها كهاد الدونة لكن أنا وحى مرخاتي كاه إن وضح هذا الذي دلك الصوماليا مدحدي الصوماليا يا الصومال لدى يكوي عشان دلك جيبوتي إنه ها مد ومدينا الصومالي لاند وسوهوي مقع وين شرف وين يقيب وناكسن وأين الحق لهين waxaan jeclaan lahaa in laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya habeen barka 12 caawa aynu gallo munaasabadii sanad guurada 6aad inaynu bilowno horo marka iyo horo socodka dalka Soomaaliland waxa itaal aynu hayno waxa cilmi aynu hayno waxa awood aynu hayno waxaynu ku dhisaynaa dalkeena waxaynu ku muujinaynaa waxyaabaha aynu 30 sanadoodna soo dhaafay qabsanay waxaynu ka talaabsanaynaa oo aynu dib uga sii jeesanaynaa burburkii naga dambeeyay wixii na soo gaaray in badan baynu ka hadalnay maanta waxaan rabaa yar iyo weyn oo waliba dhalinyarada marti uga ah oo dhalinyarada waliba xaq loogu leeyahay in dalkan loo dhisay ee miinada looga saaray ee guryahoodii loo dhisay ee intii baaqi noqotay loo badbaadiyay ee wax lagu baray ee loogu sameeyay wadanka quruxda badan ee dalal badan ay majiiranayaan inay ku iimaansadaan oo wax nagala dhisaan ayaanu martooga nahay carruurta iyo dhalinyarada
waxaan doonayaa ciidanka nus malyuunka ah ee da'doodu u dhaxayso 15 iyo 20 inay noqdaan ciidan ku soo biira dib u dhiska Somaliland oo maxay ku dhisayaan dib indaabyada ay uga turaan hadalka xun ay uga turaan faalada xun oo ay uga turaan cadowgeena oo ay noo jabiyaan oo ay uga turaan oo ay eegaan waxa weyn ee dalkeena u soo koray waxa weyn aynu qabsanay waxyaabaha wanaagsan ilaahay ugu mahadnaqaan oo yiraahdaan alxamdulillah dalka caynka u dhismay baan ku dhashay oo ku noolahay oo ku soo koraya oo insha Allah wax ku dhali doona taasaa waajib ugu ah dhalinyarooy internetka instagramka twitterka iyo 120 kale soo baxay oo qaarkood garanayba magacyadooda waxaan doonayaa inaad ku isticmaashaan inaad isla kaaya barbar taagtaan oo nagala shaqeysaan warka wanaagsan ee Soomaaliland laga fidinayo haddii kale waa biyo cildaanshay intaas oo maxaan ku raay itaala gala xoog baa gala karti baa gasha dadaal baa gala idinku taayirada naga banjarnina haddii kale waanu iska fadhiisan waxaan doonayaa rag iyo dumar haween iyo waayeel culimaa diinku ducada noo badiyaan oo waliba dhalinyarada culimaa diinkee kaabadahaas oo kale ka boodi kara iyo culimaa diinka iyo madax dhaqameedyadeena la jooga iyo madaxda halka fadhiya aanan arkaynin laakiin aan hubo inay joogaan waxaan doonayaa inaynu dhamaanteen isku ciidan noqono ciidanka dib u dhiska iyo horu qaadida Somaliland yaa lagu taageeraya gacmo ma haya yaa lagu taageeraya ma kala baxna inta taageeraysa inta kale annagu ba badan annaga ka badanay kolleey waxaan doonayaa inta yar ee yar caajiska ah ee shakigu ku jiro inay nagu soo biiraan oo walana dhaafaan oo talooyin nagu biiriyaan oo xumaanta nooga turaan oo aflagaadada nooga turaan cadowgeena inta ku filan oo qabanaya iyaga ha caawinay wadankaaga caawin aad baad u mahadsantihiin waan qushuucsanahay waan faraxsanahay ducada Sheekh Khaliil inoo duceeyay inta in la eg baan Soomaaliland ugu duceynayaa waxaan aad iyo aad rabaa inaan u mahadnaqo wasiiradii aanu israacnay iyo madaxdii aanu israacnay iyo gudoomiyihii golaha sare aanu israacnay iyo madaxweynihii aanu waftiga aan ka mid noqday aan raacay wax weyn baa iga kordhay qiimo weyn baa iga kordhay rag mudakara ayaan soo arkay dad daacadaan soo arkay dad afkar af yaqaan aftahamale baan soo arkay dad Somaliland nimadu ka dhabtahay baan soo arkay waxaan doonayaa inaad u duceysaan oo u mahadnaqdaan oo u duceysaan in halka Ilaahay maanta halka wanaagsan u taaganahay meel ka sii sarreysay Ilaahay na gaarsiiyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh